halkan oo kaamka barakacayaasha ee Shangalle ee duleedka magaalada Buuhoodle ay ku jiraan dad aad u tiro badan oo ku xoolo waayay abaarihii soo maray dalka Soomaaliya iyo waliba sidoo kale danyara ayaa Cabdulaahi Jaamac Haruun oo kamid ah culimada degmada Buuhoodle ee gobolka Togdheer waxa uu gaarsiiyay deeq biyo ah ayadoona guud ahaanba degmada Buuhoodle ee gobolka Togdheer ay ka jiraan abaare iyo biyo la'aan. Deeqdan biyaha ayaa waxa ka faa'iideystay qoysas danyar oo ku jira kaamka barakacayaasha ee Shangalle waxaana ugu horeyntii halka ka hadlay Cabdulaahi Jaamac Haruun asagoona ugu baaqay in hay'adaha iyo waliba sidoo kale dawlad goboleedka Waqooyi Bari Soomaaliya iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay gargaar degdeg ah la soo gaaraan dadkan ku jira kaamka barakacayaasha ee Shangalle. waxaan joognaa magaalada Shangalle ama kaamka Shangalle ee dadkii xooluhu ka dhamaadeen ilaahay idankii waxaan soo gaarsiinay biyo waa u jeedaan dadka meesha jooga iyo shirikaanka yaala halis waxay yihiin labada booyadood inay ka go'aan bishan iyo bishii hore tagtay carabida labadaba waa biidhaan ka wadnay meel badan baa wax la gaarsiiyay baahidu aad bay u fara badan tahay ilaahay baa dadkan ku filan biyo waa la haystaa oo biyo ceelash way shaqaynayaan laakiin maatadu ma cabi karto cunadana kuma karsan karto caruuruhu kuma cuni karaan biduruuf bay ku cuni karaan laakiin markii kale waa shuban iyo maato nafaqa dar hayso marka mar walba waxay u baahan yihiin biyo macaan oo ayna cabaan waxna ku karsadaan walaalaha muslimiinta waxaan ugu baaqaynaa Soomaaliyeed meel ay joogaanba dadka aad arkaysaan tiradooda meesha gibran ee shirikaanka wata ee Soomaaliyeed ee hooyooyinka ah in laga qayb qaato duruufta si wacan loo soo dhaweeyo qof walibana wuxuu awoodo kaga qayb qaato qofkii ma taqaanaa booyad shubi kara labadii booyad ku guuli kara saddexdii booyad ku guuli kara cid kasta oo maaragta wax qaban karta inay wax qabato muhiimku waxa weeye dadkan wax soo gaaraan meeshay soo marinayaan iyaga yaqaana cid ay soo dhiibayaan iyaga yaqaana laakiin muhiimku waxa weeye dadkan wax soo gaaraan waxa lagu qaybinayaa laba booyadood oo macaana dadkii soo bixiyay waxaanu jecel lahay inaanu u ducayno ilaahay barakaha siiyo waxa bixiyeen ilaahay meel wacan ha u geliyo waxa bixiyeen ilaahay meel wacan ha u geliyo aakhiriya adduunka liibana Allah ka siiyo si wacan bay yeeleen dadka aad arkaysaan iyo intaas oo jirkaana ummadda la siiyay waa ummad fara badan waa ummad aad iyo aad u fara badan waa ummad degaana waa ummad guurta ah waxaanu leenahay haddee biyaha haddii la cabana waxaa la doonayaa wixii lagu cuni lahaa ama lagu karsan lahaa ama lagu cabbi lahaa waana bishii Ramadaan baafooda nagu saysay Shabcaan baynu joognaa waxaanu doonaynaa qof kasta oo nool oo wax bixin kara oo sadaqaysan kara dadka inuu ilaah raxmadeed ugu soo dhiibo ummad aad fara badan ayaa ku nool oo danyara waana kaam aad iyo aad u weyn baahidiisuna aad bay u fara badan tahay hadday biyo tahay hadday baad tahay iyo haddii ay xaaladaha kala tahayba markaa sida odaygu sheegay walaalaha muxsiniinta waxaan u sheegaynaa dadkaas in waxa weeye wixii awoodi karaan ay soo gaarsiiyaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa bogaadinaya hadalka ay yidhaahdeen odayaashu sida ay sheegeen meeshan waa deegaan ballaaran waa deegaan dad qaxoontii joogo dadaan waxba haysan joogaan dad danyar joogaan wax loo baahan yahay dadka wixii loo qaban karo in loo qabto qof walba awood wuxuu u qaban karo inuu u qabto in la soo gaarsiiyo biyahaasana soo gaaray baahida meesha taalaana way fara badan tahay dad fara badan oo gurigiisa aan indhaweyto waxa weeye ka qatanaa baa jira dad waalan baa jira dad curyaamaa baa jira dad maartay danyarho badan oo aan waxba awoodin baa jira marka walaalaha muslimka waxaan u sheegaynaa inay soo gaarsiiyaan qof walba wuxuu kari karo. Maxamed Cali Bile warbaahinta qaranka Soomaaliya Buuhoodle.